nabadiyo nolol alla madaxda nabadiyo nolol abalkaynaga mutan bulshooy magudi kareen ducaanu marinaynaa maamuus horseedii gole wasiiro mudaniyo xukuumad milgaladhiso ra'iisul wasaare khayro dadku mahadsan ku qire khayre masanadhiso dadku mahadsan ku qire bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu nabadda wadayaal halkani waa nabad iyo nolol kusoo dhawaada saaxiibayaal warka warbaahintan qodobadaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya wasiira ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo laga helay coronavirus iyo xaaladda maamulkaasi oo cakiran faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo qadka telefoonka ku wada hadlay maxay ku heshiiyeen waan idiin soo gudbinayaa berbere oo habeen mugdi ah soo maray xildhibaan dayb oo afka furtay eedayn kulna jeediyay taliyihii casilay ee dhuusamare Muqdisho ayaa la keenay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa dhawaan daawan doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay abaaraysaa 10 bisha May 2020 oo diyaar garooba saaxiibayaal faafahinta qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan fadlan saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan la gaarayso subscribe channelka ay saarto share tan saaxiibayaal uga caawisaan aynu ku bilownay wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa laga helay caabuqa COVID-19 ama coronavirus waxaana cakiran xaaladda deegaanada maamulka dowlad goboleedka Puntland waxaa kordhaya mas'uuliyiinta ka tirsan maamul goboleedka Puntland ee ku dhacay xanuunka COVID-19 ee safarka kaasi oo saameyn baan ku haya guud ahaan wadamada caalamka kaasi oo laga cabsi qabo in dad badan ay u dhintaan caabuqan kuwaas oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka jira wasiirkii saddexaad oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa shalay waxaa laga helay cudurkan coronavirus waxaa sidoo kale dadkii ugu dambeeyay cudurkan laga helay ku jira xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Saud Cabdullaahi Daniya waxa uu sheegay in wasiirka maamulkiisa laga helay cudurkan coronavirus xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay waxaana uu xusay in wasiiradan ay ahaayeen kuwa shaqo badan u hayay bulshada Soomaaliyeed wasiiradan laga helay cudurkan coronavirus waxaa la sheegay inay hayeen kuwa si weyn ugu shaqeeyay magaalada Qardha kuwaas oo dhawaana halkaasi dad badan oo ku arkay dadka roob xooggan oo halkaasi ka day waxaana ay ku howlanayeen gaarsiinta magaalada Qardha oo gurmadkaasi lagu samato bixinayo wasiiradan oo laga helay cudurka coronavirus ayaa waxaa la sheegay inay hayeen kuwa si weyn uga shaqeeyay magaalada Qardho dadkuna aad ay u hadal hayaan saameynta ku yeeshay xanuunka safarka ee COVID-19 deegaanada maamulka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa laga diiwaan geliyay 76 kiis oo cudurkan COVID-19 ah waxaa ilaa hadda la xaqiijiyay cudurkan gudaha maamul goboleedka Puntland inay ugu dhinteen ilaa 3 qofood Soomaaliya ayaa waxaa markan si weyn ugu sii faafaya xanuunka COVID-19 kaasi oo dad badan ay u geeriyoonayaan waxaana mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ay ka cabsi qabaan in mar kale uu si fiican ugu sii faafo mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi laga yaabana in mas'uuliyiintani cudurkan ay u dhintaan maadaama cudurkan uu yahay xanuun safmar ah oo dunida saameyn baan ku haya dagaal culusna waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho faahfaahin kala duwan dagaalkaasi waa laga helayaa waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal xalay dhexmaray ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa qaybo kamid ah magaalada Muqdisho waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ay sheegeen waxa ay la sheegeen dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa booliska dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay in ciidamada boolisku ay sameeyeen howlgal waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay deegaanada wadajir ee gobolka Banaadir balse waxa howlgalkooda ay kala kulmeen dagaal kaasi oo kaga yimid ciidamada militariga Soomaaliya ku sugnaa agaarka howlgalkan ay ka sameeyeen ciidanka boolisku dagaalkan ayaa waxa xoogiisu ka dhacay xaafadda Tarabush iyo Kawagoda ee degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxaana ciidanka booliska ay wateen
gaadiid dagaal halka ciidamada militariga ay wateen gaadiid kale. waxaana halkaasi ka dhacay rasaas xoogan oo dadka deegaanka saameyn baan ku yeelatay. intaasi kadib waxaa ku baxay qaar kamid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyagoo la kala qaaday dadkii halkaasi ku dagaalamay, waxaana ilaa haddaan la ogeyn khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. dagaalkan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loo hadalhayay saacadii lasoo dhaafay, balse maan markii ugu horeysay oo ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay isku rasaasayaan gudaha magaalada Muqdisho, kaasi oo ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaara dhinaca dagaalamaya. Berbera oo habeen mugdi gashay xildhibaan Dayib oo afka furtay. xildhibaan Dayib oo warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay in magaaladan iminka ay wajahayso xaalad aad u adag, taasi oo ah habeenkii ugu dambeeyay mugdiga. waxaana uu sheegay in ay dhibaato xooggan ka jiraan dhanka shirkadaha leerarka. waxa uu carab ku adkeeyay in arrinkaasi uu yahay mid soo laalaabtay, isla markaana ay dhowr jeer horey uga digeen in shirkadaha korontada bixiya ee magaalada Berbera aysan sidan kusii shaqeyn karin lana ballaariyo haddii kalena dadka ay isku tashtaan. magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay inay tahay hadda magaalo mugdi ah, xaaladeeduna ay adag tahay, waxaana uu sheegay inay u baahan tahay wax ka qabasho. xildhibaankan oo warbaahinta la hadlaya waxa uu si kulul u weeraray shirkadaha bixiya korontada, waxaana magaalada Hargeysa maalmihii lasoo dhaafay haystay koronto xumi baahsan, waxaana shirkadahaasi bixiya korontada lagu eedeynayay in aysan si hufan ugu adeegin shacabka maadaama halkaasi ay ka liidato korontada. xildhibaan Dayib ayaa waxa uu sheegay in aan sidan lagu sii shaqeyn karin, dadkuna ay u baahan yihiin inay helaan koronto iyo agab dhammaystiran si howlahooda ay u sii wataan. qadka taleefanka ayaa waxaa ku wada hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu ka socdo dadaal mug leh oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida Gaalkacyo, kaasi oo si wada jir ah isaga kaashanayaan ciidamada kala duwan ee maamul goboleedka Puntland. madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu baaqu diray dhammaan bulshada wada degta gobolka Mudug labadiisa dhinac ee Puntland iyo Galmudug, waxaana uu bogaadiyay ama uu ku booriyayba inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo nabad ku soo dabaalida magaalada Gaalkacyo, isla markaana ay colaad dambe aysan halkaasi ku soo laalaaban. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay dhigiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, waxaana uu kala hadlay sidii ay isaga wada kaashan lahaayeen labada dhinac in la xoojiyo nabadda magaalada Gaalkacyo. waxaana uu sheegay arrintaasi inay qadka taleefanka isaga wada hadleen madaxweynaha iyo dhigiisa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. sidoo kale waxay ka wada hadleen qaabkii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada. madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdilaahi Dani sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland dhinaceeda ay xakameyn doonto ammaanka deegaanadeeda, waxaana la sheegay in dhanka Puntland ay xaaladeedu degan tahay. waxaana madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu sheegay inay sii wadi doonaan dadaalka ay kula jiraan qaabkii loo xakameyn lahaa in ammaanka deegaanada maamul goboleedka Puntland iyo deegaanada Galmudug ay noqdaan kuwa aad u degan. maalmihii lasoo dhaafay ama waayihii dambeba waxaa xasiloonaa magaalada Gaalkacyo amnigeeda kadib markii marar fara badan uu dagaal ku dhex maray laba ciidan oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland iyo kuwa Galmudug. guud ahaan warkii ka daawareyseen channelka Nabad iyo Nolol wanaagsan. nabadgelyo.